oday baa inankiisa ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii uun ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabbo waa tan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaas waliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saas u eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii buu ku yar wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay oo abaanka way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma ku sheegaa haa aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee hor magaalada u galo odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya uu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa oo u keenay odaygii aabbo hoo markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo waqti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waqtigaaga maalkaaga ardayga waqtigiisa inuu diinta barta ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi طalab العilmi fahuwa fi sabiili الlahi xataa yarjica maalkaaga waqtigaaga ood waqti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba mii kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac laguma leh lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwaddu garab maree dacwaddoo dhan maaha sidaas ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garab maray dee qolo walba
qaar yar mushadidiin noqdo iska leeyihiin Soomaa oo yar nuura ka uu nuuray markaa laakiin manhajku ma qabo in reerka la dayaco ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nabiga nin baa u yimid calayhi salaatu wassalaam wuxuu yaa rasuulahay inaan baxaan raba jihaadka waa cahdiga nabiga dagaalna waa loo baxayay markaasuu yidhi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu yidhi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu hooyaa ka nool